حتى هدي أي فشلمان وهذا لا كسمايو أحمدوبة وكأت كهذه الدولة الفدرالية الصومالية توم تلود أو تشتك السلوق قاضي إن شو بلان جعنتي سلقة صارنا والو قول درستي ما أنتنا إستجا أيام مجن لويه هاي يدو أي ولي بالدولة الفدرالية الصومالية وتقاني هذه السنة لكن تاسد دلنتاد أيو كدجاي مدحونا حسن الشيخ هدي شرق لها وزيرة الصومالي أحمدوبة أي كو إيديان إنه أرجحية هاي وحنس أمرين وربهين تلاقى الشيبه نوع كسان أود اللي عيه هذا التاس وورد عي يوح لقى السوق بدبي ومدحوني حسن الشيخ أياك اسماعيل الله فدي أحمد مذبي ونا أقول سنه جامية مهمة دولة ديسك الصومالية وأن لوجم مارمين دور شوينك إيه هيكل كدلك قالها وزيرة إيه وزارة حمسة دور ملأ حمله شريك الشيخ أحمد مذبي أرجع حسنا ما أنت مدحوه هو الوجود تميال وافي سكوير ومشروع وين أبد لقى هرقليو حافظة باكلان مقالة نيروبي waxaa isugu jira guryo deegaana xarumo ganacsi iyo hoteelo feefistara waa xarunta cusub ee nolosha casriga iyo ganacsigu ay ku kulmaan isku marna aad ka heli karto wixii faahfaahina lambarada shaashada ka muuqda labada xildhibaan ee cadaado iyo beledweyne ama hirshabeelle iyo galmudug saabir shuuriye iyo cabdulaahi sanbalooshe waxay kismaayo durba ka bilaabeen inay axmed iyo xasan sheekh ku heshiisiin karaan in xamse iyo wasiiradiisa afka ciidda loo daro labaduba ololahaas waa ku jiraan kismaayana waa u joogaan oo maba qarsana xasan sheekh maxamuud hogaamiye ka doortay madaxtinimada daacad aan waarayn cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ku qeexay madaxweyne xasan sheekh isagu ma aha hogaamiye madbaale oo dhisaya hay'ado adag mana aha kali taliye istaraatiiji oo dhisaya nidaam xoogan magacaabisadiisuna waxa ay muujinayaan jahawreer iyagoo aan muujin wax qorshe ah ama falsafad dowladnimo ah habkan wuxuu la mid yahay nin taajir ah oo hanti badan ku bixiyay mucaarad aan daacad ahayn marka lacagtu dhamaato taageeradiisuna waa dhamaataa falanqayaasha siyaasaddu waxay ku sifeynayaan madaxweyne xasan sheekh nin aad ugu nugul dhinaca shisheeyaha markastana daacadnimada soomaalida ka jeclaada faragelinta dibadda waa markiisii labaad oo ay dowlado shisheeye la heshiisiinayaan Jubbaland geeyaanna Kismaayo tan iyo sanadkii 2013 oo uu Soomaali badankeed ka diiday in dhismihii Jubbaland wada hadal siyaasi laga galo xilligaas TPLF ayaa madaxweynaha ku qasabtay la heshiintii dhinaca Kismaayo iyo Axmed Madoobe haddana waa dowlad kale oo ay khaliijka ilaa Kenya iyo Ethiopia la soo maray xasan sheekh maxamuud hogaamiye saanqaadkiisa siyaasadeed aan ku dhisin saadaal iyo madaxweyne xulafadiisa aan xitaa tixgelin ahayn doorna aan siinin Axmed Madoobe oo ay Kenya ku dhex jirto ayuu la hadlayaa xirtiisuna waa warmoog hadda Jubbaland mowqifkeeda waa la yaqaan waana sii sheegtay qodobada ay rabto inay natiijada doorashada oo qayb ahaan la aqbalay in la dhameystiro lagu dhawaaqo laakiin fiilo Soomaaliya lama yaqaano waxay ku bedelanayso marka laga tago wararka iyo ciyaadka ee kooxda madaxweynuhu ay sheegayso yaa dulman waa su'aasha u badan ee maanta la isweydiinayo adeega Wire Nations waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga Yurub ama Canada aad ehelkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store Wire Nations adeeg loo bogay lana mahadiyay cid kaliya ee dibta tabanaysa aan si sheegan karin filayna cid wax u qabanaysa inay jirto waa askariga dhaawaca ee sariirta wali u saaran dhaawacii ka soo gaaray amaradii siyaasadeed ee xabadda loo rogay raas Kamboni ilaa iyo balad xaaw hooyooyinka iyo caruurta waalidkood daawo la'aanta ay u dhinteen ee laga xiray garoomada Gado ilaa Doobley oo ahayd musiibo dambi dagaal ah waan cidna qaaday cid dulman waa bulshada rayidka oo aan door ku lahayn maanta miiskana fadhiyin cidna uma maqna dabcan ceelna uma qodna la yaabkuuse waa in Gado wali xayiraad saaran tahay fartaag wuxuu doonayaa garoonka Doolow si uu dhaqaale uga sameeyo waana cidda ugu ballaaran ee hadda Gado xanimaadu ay u saaran tahay maxaa laga yiri safarka madaxweyne xasan sheekh Kismaayo inkastoo si weyn loo isticmaalay weero iyo go'aano hore loo gaaray oo la soo celceliyay mowqifyo maalmo hore ahaa haddana hogaamiyaha wada jir ana xildhibaan baarlamaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa safarka madaxweynaha sidan ku sifeeyay imaashihiisa xukunka ee xasan sheekh maxamuud wuxuu ka tagay shaqadii nidaamsaneed ee dhismaha dowladnimada wuxuuna doortay aragti ku dhisan mid aan la saadaalin karin
hadda wuxuu goosanayaa mirihii uu beeray oo ah sumcad luntay xulafo ka fogaatay iyo go'doon siyaasadeed oo khatar gelinaya xitaa xasiloonida dalka safarkiisa Kismaayo waa caddaynta ugu dambaysa ee fashilkaas ma aha hogaamiye qarannimo waa tallaabo degdeg oo uu qaaday hogaamiye ku khasbanaaday inuu bedelo mowqifkiisii hore si uu helo fursad gaaban oo ku sii noolaado siyaasiyan ayuu safarka Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Cabshukuur ku soo koobay ugu dambeyn wada hadalku waa socdaa Kenya ayaa door xooggan leh dhammaan xubnaha la socda madaxweynaha kaliya labada xildhibaan ayaa leh ajenda siyaasi ah oo la yaqaan bilow ilaa dhamaadka inta kale waan xubnaha door lahayn inta maqana warkeeda wadaa ku soo dhawow Daarul Asnaan Dental Clinic xarunta daryeelka ilkaha oo tayo sare leh war farxad leh adeegyada casriga oo ay ka mid tahay beerista ilkaha ayaa hadda diyaar ah Hindiya inaad aad uma baahnid Garowe iyo Boosaaso ayaad ka heli kartaa ilkaha maqan Daarul Asnaan Dental ayaa ku haya hal waar oo caafimaad leh